dadka inta ilmeeya ma aha dad jilicsan oohintu waa sida qalbigaaga u hadlo goortii bishimahaaga aysan sharix karin xanuunka aad dareemayso waxaa jira hadallo u waxyeelo qalbiga si ka daran seef lagu dhuftay waxaa jira hadallo qofka ku noqdo waran kaga taagan wadnaha noloshiisa oo dhan ka taxadar hadallada aad dadka kula hadlayso mararka qaar waxaa wanaagsan in qofka iska aamuso intii dadku u sheegi lahaa dareenkiisa sababtoo ah way ku sii dhaawacaysaa kaliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynaan rabin inaan aragno laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynaan rabin inaan dareenno aad bay daruur u tahay inaan xushmeeyno dareenka dadka kala fogaanshuhu ma baabi'iyo xiriirka ma aha inaad aragto qof jacayl idinka dhaxeeyo maalin kasta muhiim ma aha joogitaanka qoloftaada ee waa waxa qalbigaaga ku jira jeclow waxa qalbigaagu ee ma aha waxa indhahaagu arkaan ha ka walwalin wax dadka ku yiraahdaan ama ku arkaan kan waa jacaylkaaga ee ma ahankooda jeclow ama ka tag qalbi ku dhaawacay balse marnaba adigu ha dhaawicin qalbi ku jecel run waa loo ekaysiin karaa dhoola cadayn iyo qosol been ah laakiin lagama been sheegi karo ilinta iyo dareenka dhabta ah xiriiro badan ayaa burbura sababta ugu weyn ma aha jacaylka oo meesha ka maqan jacaylka had iyo jeer waa joogaa ma tago qof ayaa keligii aad wax u jeclaa halka qofka kale isaga jiray ciyaar iyo khiyaali ha u ogolaan xiriir hor oo noloshaada ah inuu burburiyo farxadda mustaqbalkaaga nabarka ama xagtintu waa inay ku xusuusiyaan wixii aad ka soo gudubtay ee ma aha halka aad ku socoto dadku qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda si kasta oo ay u weynaadaan daana ugu darsanto sababtoo ah quruxdooda marnaba ma ahayn wajiga waxay ahayd qalbiga qofka naftiisa garta wuxuu ku mashquulaa hagaajinteeda isagoo uga mashquula ceebaha dadka kale waa anigoo ah maxamed yaasiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.